هاي ماشي ما سويت شيء انت انا اسكتكت ماشي تندي هنا كان بس انا ايش جسدو انا شاشته وصص مع وحاولي كاميرا سويت شاشة الكاميرا سويت سياس كو اركاني والساعة ولا هذيك شريف هو وباش واسك دوري تسير وحوا والله شريف هو عرض شريف هو اساس ما انا شريف هو ريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رئيس الوزراء دولة دلك صوما كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كفي أنت كل عام أمس هذا الشيء. تيم مدحوينها كعلنا مركب تيم مدحوينها كلنا شاشة كعلنا شاشة مدحوينها مامور goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa aqbalay xilli doorashooyinka ay ka soconayaan subaxnimo ku soo dhacay oo malabkiyo darabku baay ka soo ku dhaweeyaa mana aan dade adiguna hadeeraan solo heesabrada dikale soo iska dhaafano iska heesamiya ku iska heesan la yaabaan ku aan meelan saar la wala dafan ku soo biir la ana fal dirbin ma ahay wareed ka soo baxday بسم الله جيتك على شو قوانا ولا تكسو بعد حفيزك مدحوينها سويا ما نقول لك بنت لا قال ابو ابو امريكا لو مسكن لواي مينغا كلغعلكي مينغا خاتمدودا iyo waxooga iyagu ka waramaan dhow adeer hargeysan lagu xidhayaa tii kale maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaca ka qaaday inay wax ka qabanayaan kooxaha burcadka ay caadeysta inay baartaan dadka ku safraya wadooyin fiore abu ila ka baqay hadi shii ismaati waxaan ku dhalmo wali ku asqabtay mo la ku asqabtay hal daaq ma qoro mislabo مشرع محمد عبد النور وكمida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Garowe kaasi oo kaga hadlay arrimaha ammaanka iyo sida uu arko guddiga ansixinta xalinta khilaafaadka iskar baashan mujeda waxaan istaalka ana u sameeyay saamo loogu talagalay baayada qodobadaas iyo qodobo kale oo diyaar garooba gardhow marka ay ku kala baxeen wararkeena abu goray soo wada laakiin afar saaci barbo iska ka ilaa markiisno mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee cudey Somaliland ayaa waxa ay ku مسؤولين كترسنا حزبك معارض كعودي سوماليلاند ayaa waxa ay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliland inay ku guuldareysatay inay wax ka qabato banaanbaxyo iyo waliba sicir birir xakasan maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa maanta saxaafadda waxa uu kaga warbixiyay kulan uu la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale guddiga